السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to my YouTube. Please don't forget to subscribe button and like to know رأسي أنا رأسي. Okay. maanta maxay idin hayaa barnaamijkeeni ahaa dhiirigeli waanka noo hayaa waxa soo laabtay ninkii ahaa Cabdullaahi Qoslaaye iyo video kale aad iyo aad u xiiso leh aan isla daawan hadaba videogaas fadlan haddii aad ku cusub tahay barta dhiirigelinta like-tana dhac ku sii. Okay, waan guda galaynaa videogan ayaa ah wiilkii sameeyay diyaaradda markii hore diyaaradii uu sameeyay waxa aad mid soconaysa just waxa uu sameeyay diyaarad kacays. marka aan isla daawano videogaas waxa wareysi ka soo qaaday wariyii hore ee isla maalintii aan video reaction ka bixinin wareysi ka soo qaaday. Okay, inkan bilaabanayna. waxaan duulayaa ee aad arkayso maaha Somali Airline iyo Djibouti Airline waa diyaarad yar uu farsameeyay wiil dhalinyaro ah kaas oo ku nool degmada Xarfo ee gobolka Mudug. Abdullah waxa imika soo bandhigay diyaaradii uu hadda ka hor uu sameeyay qaar kamid ah just diyaaradaas ayuu soo bandhigay iyo diyaaradihii uu imika sameeyay bal aan isla daawano waxa uu ka sameeyay diyaaradda wiilkeer uu ka faaloonaya soo kale wariyaha uu ka faaloonaya ay Qosolbiid waa 17 jir horay ayaynu u baahinay muuqaalkiisa isagoo farsameeyay diyaarado kala duwan. imika sheekadu way ka duwan tahay farsamooyinkii hore waa farsamooyin casri ah uu hindisay wiilkan dhalinyarada ah ee ay ka guuxayso hibada ay ku laran tahay caajis la'aanta. magacaygu waa Cabdullaahi Maxamuud. horta been ma aha waa hibo caajis la'aana waay haddii aad isku daydo waxyaabaha qaarkood waad ka caajisaysaa inaad samayso taas waxaa keenayso maskaxdaada ayaa dareemaysa daal haddaba waxaa looga baahan yahay in aad waxaasi oo dhan aad ka miro dhaliso aad istiraado aleele waxaan waa waxaad ku guulaysan lahayd ama aad horumar kaga samayn lahayd taasaa lagaaga baahan yahay. marka aan kusii socona videoga ina Cabdullaahi qosol dhan ma ogoy ayuu ku leeyahay in Qosoldiid jaamac ku nool gobolka Mudug gaar ahaan degmada Xarfo waxa rabaa in maanta halka ku soo bandhigo diyaaradahaas oo ka duwan diyaaradii hore u soo bandhigay. waxaana arkaysaan imika baalkeere kaamirada lagu qabtay waa baalkii kala hagay diyaaradaha iyo hadba hawada halka ay ka marayso diyaaradda uu markaa uu sameeyay. marka isaga inooga faalan doono oo inoo macnay doono bal aan kusii socono video. diyaaradii hore u soo bandhigay waxay ahayd diyaaradii ugu horeysay aan ku guuleystay inaan keeno naqshadeeda iyo faraaryadeeda ee ku shaqeyn lahayd. in wax la farsameeyo waa wax iska caadi ah balse in farsamada la sii casriyeeyo oo la tayeeyo ayaa u baahan waqti, hurdo la'aan, fikir badan iyo maal. diyaaradaha horta been ma aha waa run waqti iyo fikir iyo dadaal badan ayay u baahan tahay inaad wax soo bandhigto. taas ayaa lagaaga baahan yahay in aad mar inta ugu badan aad sameyso inaad dadaalkaaga aad muujiso aad istiraado aleele waxaan waa samayn karaysaa. marka aan kusii socono video. dhaqaaqaya qarna duulaya ayaa diyaarado uu ka soo minguuriyay kuwa uu farsameeyay wadanka Turkiga sida uu noo sharaxayo Cabdullaahi Qosolbiid. diyaaradii ugu horeysay aan ku guuleystay inaan keeno naqshadeeda iyo faraaryadeeda waxay ahayd diyaaradii ugu horeysay soo bandhigo. diyaaradaas oo nooceeda ah Airbus Wing Air 415 diyaaradaas oo ku shaqeynaysa xantaarka yarka ama sida u taqaaniin babatariyaasha. iminka waxa soo bandhigaya diyaaradaas oo ka duwan diyaaradii hore diyaaradaas oo ku shaqeyn doona samaayada qulqulasa ee korontada. waa waxyaabo isagu uu khibrad u leeyahay uu inoo macnaynayo anagu sida khibrad u leeyahay diyaaradna hore ma sameyn waa waxyaabo isagu uu meel ka soo bartay uu isku dayay inuu xifdiyo diyaarad ka sameeyo. waa cajiib aan ku soo socon wali maanta diyaaradda wuxuu sameeyay kacaysaba maalin ka sii dambeeyay fikradiisii waa uu ka miro dhalinaya. insha Allah waxaan rajeynayaa in Qosoldiid guul baan u rajeynayaa daba idinkana dadaalka waa xaqiina oo dadka garab galayo noqda oo videoyada idin soo dirnay u sheegay dadka lacagta haysta iyo dadka hal abuurada gurta. Okay, intaan way iga dhiirigelin
diyaaradda u jeedaan waa diyaarad aan ka soo nashqad qaatay diyaaradaha lagu farsameeyo dalka Turkiga. Diyaaraddaasoo markeedii ugu horreysay soo bandhigo diyaaraddaasoo nooceedu yahay Bayraktar TB2. diyaaraddaasoo ku shaqeysa maayadda qulqulis ee korontada ama electromagnesiumka. diyaaraddaasoo nooceedu yahay Bayraktar TB2. markeedii ugu horreysay ka soo naqsh qaatay waxa ogahay diyaaradu iminka sameeyay ayaa ku shaqeynaya sida electricin waxa uu ka wadaa korontada ama koraanka ama waxyaabaha loo isticmaalo fiishashka ama korontada ayuu ka wadaa diyaaradu markii hore uu sameeyay just waan bedeli doonaa buu leeyahay waxaan u bedeli doonaa habkii caadiga ee u duuleyso oo without electric ahaa ee dhulka electrigeeda olin iyadii macallin mashiinkeeda iswata bal ku sii socona videoga khibradeeda ay leedahay iyo nooca cimilo ay ku shaqeyso. diyaaradda u jeedaan waxaan ka soo naqsh qaatay diyaaradaha sidoo kale lagu sameeyo dalka Turkiga. diyaaraddaasoo nooceedu yahay MiG-F17. diyaaraddaasoo aan nooca militariga ee qumaatiga u kaca markay howlgalayaan. diyaaraddaasoo ku shaqeynaysa maadada loo yaqaan DC-ga. waxaan kaloo soo bandhigayaa aaladda u jeedaan aaladaasoo magaceedu yahay resistance ama caabiye. markii korontada dabka la geliyo oo loo isticmaalayo diyaaradaha qumaatiga u kacay waa aaladii aan markii idin tilmaamayay aaladan ayuu macneynayaa waxyaabaha ay faa'iidada u leedahay uu sameeyay haddaba kulli dadka diyaaradaha sameeya ama howlaha diyaaradaha iyo waxyaalaha qaabishan kulli iska garanayaan iyagu anaguse waa waxaan aragnay balan asaga inooga faalloon doonaan ku sii socono diyaaradaha sida Bayraktar oo kale iyo diyaaradda nooceedu yahay Airbus King Air 415 loo isticmaalayo ayaa dabka laga xijiyaa. dabka haddii uu qumaatiga ugu soo dhaco diyaaradda injiinkeedu waa gubanaya laakiin resistance waxa ku xiran bir yar oo loo yaqaan cover. resistance waxa ku xiran dareemayaashaasoo sheegaya in dabku quality badan hadduu ku soo dhaco in uu shidmayo leer ka mid ah leerarka aan ugu talagalay. gabagabadii wiilkan hiboolaha ah ayaa noo sheegay in mustaqbalka dhow uu wadanka Soomaaliya u sameyn doono satellite iyo diyaarado casri ah waa haddii uu helo maalgelin iyo waxqabad dhameystiran. oo wax cajiib ah uu fikradiisii uu ka maradhaliyay hadafka uu leeyahay mustaqbalkana uu ka sii sheekeynay wuxuu leeyahay mustaqbalka soo socdo waxaan doonayaa hadafka nooca ah inaan gaaro inaan noqdo kuwa u soo saara wadankiisa diyaarada aan inaba caadeen balan ku sii socono wariyaha iyo wareysiga uu ka soo qaaday dadyaabo ku nool dunida oo idil waxay dalkeena Soomaaliya ka aaminsan yihiin inuu yahay dal ku jira dunida saddexaad oo dama laakiin waxaan insha Allah rajaynayaa inaan noqon doono midkii ka saari lahaa mugdiga u saari lahaa iftiinka. laakiin caqabadii koowaad aan kala kulmo waxay noqotay qalab la'aanta wadanka ku baahsan taasoo ugu noqotay caqabadan dhaafi waayay. laakiin halka bariga kuma sii qaban doono waxaan rajaynayaa inaan kicin doono satellite ama sida u taqaanay madax gacmeed kaasoo ku shaqeynaya maadada loo yaqaan IC-ga. waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysan doono insha Allah. waxaan rabaa inaan sameeyo hawada sare ee Soomaaliya si aan wax weyn uga ogaano dunida iyo qaaradeena Soomaaliya. wiilkan dhalinyarada ah ee hibadu ay ka guuxayso ayaa shacabka Soomaaliyeed uga baahan dhiirigelin iyo garab istaag. Axmed Cabdullaahi Baasto, Puntland. wow videogii gabagabadiisa ayaan soo gaarnay wallaahi inaba caadi maaha keer waa wiil shaqeynayo dadaalayo dadaalkiisii haddaba adiga sidoo kale fikrad ayaa kaa dhex guuxayso waxaa lagaaga baahan inaad fikradaada ka meerdhayso halkaa ha fadhinina hana daabanin keliya haddaba niyow dhaqaaqo oo isku day inaad samayso adigaagan baan kula hadlay daawanayo insha Allah waxaan ku rajeynayaa inaad guul gaari doonto ina qosol diid sidoo kale mustaqbalkan waan arki doonaa isagoo waxyaabo badan oo inaba caadi ah soo bandhigay haddaba waxaan idin leenahay waxay idin tahay haydin wanaagsanaato waa halkii Kamaal Cabdo iyo Master Aways Pro oo idin leh waxay idin tahay idin wanaagsanaa haddaba aad baad u mahadsantihiin daawashada daawanaysan videoga maalmahan isdaba joog ayaan u soo gali doonaa barteena YouTube-ka insha Allah xafiis cusub noo sameeyay videoyaashan waan idin soo badin doonaa iyo challenge waxyaabahan inaba caadi ahayn haddaba idinku waxay idin kaga baahanaa inaad like-ta iyo casaanka halka ah ama gaduudka halka ah in aad baabi'isaan riwaayadan waan idin keeni doonaa oo halka qof oo laba qof iska dhigay
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Goodbye.